kusoo dhawo Ilays TV bal maxaad maartay munaasabada ciida iyo shacabka reer Ogaadeen maxaad far lahayd bismillahir rahmanir rahim wa ciid al-adha munaasabadan ciid al-adha runtii waxaan jeclahay inaan hawada u sii mariyo naftooda hurayaasha iyo halgamayaasha jabhada wadaniga oo xoreynta Ogaadeen salaan halgameed kal iyo laab ka soo goday waxaan ilaahay ka baryahayaa in uu ciideeda kale guul iyo gobonimo lagu gaarsiiyo waxaan ilaahay ka baryayaa in uu shacbiga Ogaadeen iyo gumaysiga ka dulqaado waxaan salaan halgameed u dirahayaa naftooda hurayaasha iyo halgamayaasha gudaha Ogaadeen ka dagaalamaya ama ka halgamaya iyo dhammaan howlwadeennada iyo taageerayaasha jabhada ee adduunka ku kala fiirsan waxaan ilaahay ka baryahayaa in uu ku guuleeyo ama inuu Ilaahay nagu guuleeyo hawsha halgankii adag ee aanu ku jiro inuu Ilaahay nagu guuleeyo aan ilaahay ka baryahayaa halgamayaal waxaan ku jiraa halgankaasna waxa weeye halgan aynu ku doonayno gobonnimada dadkeena iyo shacbigeena aan ku doonayno wax la raadiyo waxa ugu qaalisan waa xornimo waxaan doonaynaa waa xornimo inaan gumaysiga ka xorowno oon dalkeena ka saaro marka haddii aan hawshaa qiimiga badan aan raadinayno waa qasab inaan dhibaato adag iyo hawlo fara badan inaynu u marno markii hawlahaasoo kale la raadinayo oo cadow caniid ah oo dhiga adag in laga xoroobo la doonayo runtii wadda dhawacala ma marayno halgan adag oo aad iyo aad u hawlo badan ayaynu maraynaa halgankaasi wuxuu garaafanayaa intii gacanta ku haysa ama in badan oo qaali ah oo halgankaa gacanta ku haysa ayuu garaafanaya hase yeeshee waxaa la raadinayaa ka qaalisan oo ah gobonnimo sidaas daraaddeed halgamayaal waxaa mar walba laynooga baahan yahay dhibaato kasta oo aynu la kulanno cidhiidhi kasta oo aynu la kulanno gumaysi kalkaal kasta oo iskaashada in aynan marra inaga joojinin ujeedadeennii iyo yoolkii aynu higsanaynay ee gobonnimada ah dhibaatooyinka aynu la kulmayno waa kuwa maalin joogta ah oo xagga shacbiga aynu kala kulmayno xagga deriska aynu kala kulmayno meelo fara badan oo inaan ku talagelin ay inooga imanaysa marka waa inaynan la yaab inugu noqonin dhibaatooyin waaweyn oo aynaan ku talagelin hadday inaga hor yimaadaan waa inayna la yaab inugu noqonin waa inaynu u adkaysano oo aynu ogaano waxaanaynu ku jiro inuu halgan yahay halgankuna uu mataqaanaa uu gala badan yahay oo dhibaatooyin badan yahay inaynu jiidhno oo aynu halgankeenna iyo abaabulkeenna aynu sii xoojino marar haddaynu go-aansanay ama shacbiga reer Ogaadeen hadduu go-aansaday inuu gobonnimadiisii gaaro wax kasta oo kale oo inaga hor yimaado oo aan gobonnimada ahayn ilaa waa inaynu u adkaysano gudoomiye halkaa markaad maraysa haddaan kaa weydiino wax arrintii ka soo korodhay xamar maxaad nooga sheegi kartaa halganka iyo yacni gedihiisa weeye waxaa jira howlwadeennadayada qaar ka mid ah gaar ahaan halgama cabdikariim sheekh muuse oo waayahanba joogay dowladda Soomaaliya dhex joogay gaar ahaan magaalada xamar joogay inuu arrimo familiar ama arrimo qoys uu gaalkacyo u tagay bishan dhexdeedii waxaa markuu halkaa tagay hotel yar uu deganaa ku soo weeraray ciidamo dowladda Soomaaliya ka socda ciidamadii way kala baxeen hotelkii uu deganaa kabacdina ciidamo kale oo dowladda Soomaaliya ka socda
oo ciidamada amniga iyo nabad sugidda ah ayaa ciidamadaa kala wareegay gacan ku hayntii cabdikariim. kabacdi cabdikariim waxaa loo soo qaaday xagga madaxda magaalada xamar baa loo soo qaaday. runtii markii cabdikariim oo dal soomaaliyeed jooga oo sanooyinkii dambeba joogay ee lagu qabtay gaalkacyo, arrin runtii aad iyo aad la yaablay yay noogu noqotay. hase yeeshee markii xamar la keenay waxay noogu muuqatay in arrintii gacanta dawladda ay soo gashay. mar hadday gacantaa dawladda soo gashayna in wax walba xaqiiqadiisa lagu salaynayo oo wax dhibaato oo mataqaanaa gumays la xidhiidha inaynan halkaa imanayn. nasiib darri markuu halkaa yimid waxay jabhaddii iyo eheladii iyo saaxiibadii ay ku dadaaleen inay booqdaan oo halgamaaga ay arkaan. dawladda soomaaliya arrintaa way suuro gelin weyday oo way diiday in ninkii la arko xaaladiisu sida ay tahay, inuu caafimaad qabo, meesha uu joogo. way diiday dawladda soomaaliya inay arrintaa fududayso. runtii dad fara badan oo wadaniyiina oo soomaali ah oo mas-uuliin iyo xubno baarlamaana iyo dad shacabi ah iyo yani dad aad iyo aad u fara badan oo dhalinyaro iyo haween iyo mas-uuliin iyo siyaasiyiinba leh yaa arrintaa ka qayb galay si ay u ogaadaan xaaladda cabdikariim ku sugan yahay. waxaana soo gaadhaysa 8 iyo 20 iyo 9 iyo 20 bisha in ninkii cabdikariim ahaa la dhiibay oo dawladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynuhu uu toos ugu wareejiyey gumayska etoobiya. runtii arrintaas waanu qaadan weynay, waxa yani la rumaysan karo way nala noqon weyda, arrin lama filaana ayay nagu noqotay. inkastoo ina wax bayaanihi uusan dawladda soomaaliya uusan weli ka soo bixin oo arrintaa xaqiijinaya, haddana uu lahaan iyo dadkii hawlaha shaqadaa ku hawlanaa waxay rumaysan yihiin in ninkii la wareejiyey oo gumaysiga loo gacan geliyey. mar haddii ninkii raadkiisii la waayey oo meeluu ku sugan yahay la waayey ilaa bisha 27-keedii 8-20-kii 9-20-kii intaas oo dhan waa la raadinayay. ninkii waxaa la adkaynayaa oo dadkii soomaalida ahaa ee mas-uuliyiinta ahaa ee hawshaas daba socday ay xaqiijinayaan in ninkaa gumaysigii etoobiya loo dhiibay. runtii waxay nagu noqotay filanshawaa kale iyo arrin aanaan marna ka filanayn dawladda soomaaliya iyo madaxweynaheeda farmaajo. oo sidaynu wada ognahay farmaajo wakti dhow lagu doortay soomaalinimo iyo wadannimo iyo inuu ku baaqay inuu soomaalinimada iyo midnimada iyo wadaninimada in uu yani u noqon doono tiirka asaasiga lagu soo hirto uu noqon doono, isagoo shacbiga soomaaliya iyo baarlamaanka soomaaliya arrintaa ay tixgelinayaan way doorteen. maantana iyadoon bila ka soo wareegin ayuu yani mas-uuliyiintii soomaaliya ee gobanimadooda u dagaalamayay intuu qabtay dembi la-aan oo dalka soomaaliya aan wax dembi ay ka gelin, intuu qabtay yuu ku wareejiyey gumaysiga etoobiya. arrintaas inkasta oonaan wax bayaana weli hayn, hase yeeshee urur ahaan waanu rumaysanahay intii hawshaa gacan ka geysanaysay ee ka shaqaynaysay inay sidaasay rumaysan yihiin. waana arrin runtii nasiib darri soomaali ku ah, yani dhibaato weyn iyo saameyn weyn ummadda soomaaliya ku yeelanaysa. urur ahaan annagu arrintaas markii aanu ogaanay inaynan haba yaraatee wax raja ah oo dambe ayna lahayn, bayaan baan ka soo saaray. aanu xaaladaasi sida u dhacday aanu ku faahfaahinayno, si aad iyo aad aanu ugu faahfaahinayno, adduun weyn aanu la socodsiinayno xaaladaas siday ahayd, shacbiga soomaaliya aanu u sheegayno xaaladaas sida u dhacday iyo ninkaas sidii gumaysiga loogu gacan geliyey. arrintaas
waanu faafinay waananu soo saaray urur ahaan mar haddaanu tallaabadaa hore soo qaadnay oo aanu tallaabadaa qaadnay oonu adduunka la socodsiinay waanu ku qasbannahay wixii waajibaadka yaga la xidhiidha arrintaas iyo wixii kale arrintan nagaga aadan inaanu hadda iyo wixii ka dambeeya aanu tallaabooyinka munaasabkee nagaga aadan aanu qaadno arrintaas marka sidaasay u dhacday. halkaa waxaan kaa weydiin rabaa dhulkan ogaadeynaya maadaamuu ahaa dhul taariikhiyan dagaal uu ku dhex maray dalka soomaaliya iyo etoobiya, mar haddii madaxdii hadda soomaaliya ay dhiibayso ma la oran karaa soomaaliya waxay saxeexday dhulkaas inaysan wax xuquuqa u lahayn oo ay etoobiya ku wareejiyeen? hadda saasay u muuqataa inay go-aankaas inay soomaaliya qaadatay yay u muuqataa, inkastoo oonan akriin. waxaa la leeyahay dowladda soomaaliya farmaajo waayihii dhaweyta uu etoobiya ku noqnoqonayay waxaa la kala saxeexday in etoobiya dadka ay rabto loo celiyo, dadka ay rabto ee la dagaalamahaya ee soomaaliya ogaadeyna ka soo jeeda in loo celiyo. arrin saasaa la kala saxeexday baa la yidhi. waxaa mar haddiiba saa la kala saxeexday macnaha soomaaliya xuquuqdeedii way ka tanaasushay, dhulkeedii way ka tanaasushay. maxaa dhulkan dhul soomaaliyeed weeye, xuquuqdeedii inay ka tanaasushay, dhulkeedii inay ka tanaasushay, etoobiyana ay dhulkii u aqoonsatay ayaa muuqata. xaqiiqadasi iyadoo qoraalo unbaa un runtii waynu arki doonaa haddii ala yidhaahdo unbaan u malaynayaa. hase yeeshe sida u muuqato astaamaha iyo waxyaabaha socda yani taasunbay mataqaanaa ina tusinaysaa. su-aasha kale gudoomiye ku weydiinaya waxaa weeye ka urur ahaan dowladda soomaaliya arrintan ma kala hadasheen madaxda wax xidhiidha oo aad ka hesheen ma jirtaa? bal arrintaas maxaad maaragtay nooga sheegi lahayd? arrintani markay dhacday isla markay dhacdayba inkasta oonaan madaxweynaha arag prime ministerkana aanaan arag laakiin xubno aada u fara badan oo baarlamaanka ka mid ah oo siyaasiyiina oo dad fara badan oo shacbigii soomaaliya arrintaas si joogta ayaan ula socodsiinay. saas daraaddeed yay dadkaasi isu wada xilqaameen oy uga wada shaqeeyeen oo dhammaantood ay madaxweynaha iyo prime ministerka iyo saraakiishii nabad sugidda ahaa ee gacanta ku haysay halgamaagan gacanta ku hayay yaa dhammaan yani arrintaas lagala xidhiidhay. marka arrintani waxaa weeye arrin soomaaliyeed bay ahayd runtii oo mas-uuliyiintii soomaaliya ay si fiican uga shaqeeyeen in ninkaas gacanta inaan mar raba gacan etoobiya aan la gelinin la badbaadiyo. hase yeeshee madaxweynuhu dhaguhu ka furaystay, sida muuqata dhaguhu ka furaystay, wuuna ku gacan saydhay. yani ugu yaraan 22 nin oo mas-uuliyiin oo madaxda yani iyo xubnaha baarlamaanka kamid a arrintaa waan ka wada hawlgelaynay. dhammaantoodna badankooda madaxweynaha xidhiir bay lalahayn oo ay kala wada hadleen. madaxweynuhu waxaas oo dhan waxaad moodaa inuu dhinac iska dhigay oo uu go-aanka etoobiya kala weynaaday. hadda wax kale oo la xidhiir yani aragtida etoobiya kala weynaaday, soomaalinimadii iyo dareenkii shacbiga soomaaliya iyo siyaasiyiintii dareenkoodii iyo wadaninimadii waxaasna waxaa kala weynaatay. yani etoobiya iyo waxa ay doonaysaa kala weynaatay. tiibuna madaxweynuhu fuliyay sida hadda muuqata. ugu dambeyntii waxaa jira dad soomaaliyeed oo dhalinyaro u fara badan oo meelaha social mediaha iyo websiteyo fara badan arrintan ku cambaareeyey, meelo badanna kaga hadlay, aadna uga gadooday barnaamijkan oo mataqana ilaa hadda gadoodkoodii uu socdo aadna uga xun. shacabkaa soomaaliyeed mataqaana sida shacabka reer ogaadeen uga xumaadeen hawshan iyaguna uga xumaadeen maxaad leedahay? runtii shacbiga soomaaliya guud ahaan arrintan aad iyo aad bay uga xumaadeen, aad bay uga xumaadeen. ama yani social mediada ha ku jireen, ama siyaasiyiin ha ahaadeen baarlamaan, ama dadkaas shaarica soo ha noqdeen. dadka soomaaliya yani meel uu joogaba, mid reer ogaadeen iyo joogo arrintan gacanta ku hay iyo mid shacbigaa soomaaliya yani way aad bay uga xumaadeen. waxay ka xumaadeen oo marna lalaga karaynin qof soomaaliya oo muwaadina oo magaalo madaxdii soomaaliya jooga in intii lasoo qabto
safiirka Ethiopia ee halkaa jooga gacanta loo geliyo يعني وأرين رنتي آد يا آد يعني ودنا آد يا آد وأرين آد قابتر موي ولما فلكا إن مدحوينه صميو ومدحوينه الصومالي يعني من نقول كلامك قف كسر سكري مدحوين الصومالي من نقول كرهيا من نقول كرهيا شريته بركي لدورني وحاولوا دورتي ودني مو إيه الصومالي ما رأوا دورتي أرين دنو أرين كسور شيء الصومالي نمدي ودني نمدي أرين كسور شيء دوي مركا شعبك الصوماليا إني لسان درين كودني ما داري جدًا كميسية يطلعوا كولا آدي آد بان أو أمان يا أمان يا وانا أو مهنق هيا طلعوا يكأي قادن يدلال كأي موتشين آدي آد بان أو مهنق هيا وانا واجب نو فرار هنتي إنسلا الله شقيه وانا نوضينا سكاشي يوضا شقينت شعبك الصومالي في عن سكاشي يوضا شقينت وعكسته أما هنقطع أنت قضية نقاليني أما مد وديني ما هنقطع أما مد نمد أمة الصومالية هنقطع أما مد التجارلك كويسي هنقطع إن نسكوا ذكاشنو ونميل وسووا ذكيتنو هي رنتي عن أمة الصومالية وباقي هي أدي أدي أمة هتسين أنت هاوجن كشقيسي أبدو ما صدق جزاك الله خير.